iyadoo dhawaan wasiirka maaliyadda Soomaaliland uu kala diray kooxda dhinaca kubadda cagta ee ku ciyaarta magaca wasaaraddaasi ayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ah Home Cable TV waxa uu ka soo horjeestay go'aankaasi waxana uu sheegay inaan la kala diri karin wax naadiya isagoo sheegay inuu fulinayo siyaasadda xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu ku galay tartanka ololaha oo sheegay in la dhiirigeliyo isla markaasna la koriyo ciyaaraha kala duwan ee dalka waana kan wasiirka ciyaaraha oo arintaasi ka hadlaya arintaasu ma aha mid waafaqsan xeerka xisbiga sida uu ogtihiin oo soo qoray dhalinyarada support garayo sportska oo waliba madaxweynaha Musabbih Cabdi waa first priority isaga arkaysan madaxweynuhu mo faarax la ordaya taasu waxay muujinaysaa dhiirigelinta oo hayo sportska iyo dhalinyarada wax lagu tabcana wax ka wanaagsan dhalinyarada ma jiraan annaga iyo madaxweynaha iyo siyaasadda xisbiga waa first priority arrimaha dhalinyarada wax lagu sii daro mooyaan wax laga xumaynaya ma jiraan waxaan idin sheegayaa cid naadiyaal la kordhiyo baan anagu ku tali jirnaa welina wadnaa wasaaradihii lahaa naadiyada iyo ciidamadii iyo intii hore u lahayd inay sii support gareeyaan oo sii hagaajiyaan mooyaane wax la baabinayaan oo ognahay ma jirto siyaasadana ma waafaqsanaa siyaasadda waddankana ma waafaqsanaa wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed waxa uu sheegay inay jirto isfaham waa u dhaxeeya isaga iyo wasiirka maaliyadda balse uu isagu leeyahay go'aanka kama dambeynta ee dhinaca ciyaaraha misunderstanding waa dhacaya wala isqornaan wala hadda wax loo dhacaya laakiin ana ku hadlay damay wasaaradda ciyaaraha naadaan ku maarnaan ma naadi la baabinayo wasiirka waxaan weydiiyay maadaama uu khilaaf muuqdo bal inay u gudbiyeen aqalka madaxtooyada Soomaaliland madaxweyne nagama gaadhin laakiin wasaaraduna way iska arkeen wax la baabinayana ma jira ugu dambeyn wasiir Boos Mire Maxamed waxa uu sheegay inaanu wasaaradna ka ogolaan doonin inay kala dirto naadi hore u jiray balse loo baahan yahay in qaar cusub la abuuro talaabadan iyo talaabo kale anagu midna ma ogolaan doono waxba mana sii soconayso wasiirku ku doonaba ha ahaada siyaasadda xisbiga baa lagu shaqaynay Xasan Sulaymaan Haruun Xasan Galayd telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa